السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janaalkeena emras. waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa haddii aad ku cusub tahay janaalkeena in aad subscribe saarto, share and like. waxaan caawa rabaa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan ammaanka dalka, gaar ahaan deegaanada dhuusamareeb oo shalay iyo daraad dagaalo ka dhaceen saakeena ay isdhiibeen hogaamiyaashii ahlu sunna waljamaaca ay isku dhiibeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. kusoo dhawaada mar kale janaalkeena emras. kusoo dhawaada mar kale janaalkeena emras. maanta barnaamijka aan ka hadlayo waxa uu yahay arrimaha bulshada, gaar ahaan ammaanka dalka iyo wixii kusoo kordhay labadan beri dagaaladii ka dhacay deegaanada dhuusamareeb ee gobolada dhexe ama maamulka galmudug state caasimadiisa dhuusamareeb. labadii beriye lasoo dhaafay waxaa dagaal xoog badan dhex maray urur diimeedka ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda qaranka Soomaaliyeed. dagaalkaasoo geystay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare kale oo maal iskugu jiro. marka haddii runta laga hadlo, xaqiiqda dalkana loo soo jeesto, horta dalka wuxuu leeyahay hal madaxweyne, hal ra-iisul wasaare iyo laba gole: golaha baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed iyo golaha sare ee sanadka. culimmada ahlu sunna waljamaaca dowladda federaalka Soomaaliya mar walbo waa ay u jilcanayd, mar walbo waxaa loo samayn jiray waxa ay ayaga doonayaan, tanaasulaad dhinac walba ah. xataa ugu dambeyntii ayagoo ku heshiiyey in ciidamada ama ciidamadii ahlu sunna waljamaaca in lagu daro dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyagoona taas aqbalay. kadibna ciidamadii la qarameeyey. balse waxaa marar badan soo dhexgalay
khilaafyo oo khilaafkaasu mar walbana ay dhalinaysay ahlusunna waljamaaca. su-aashaa marka waxay tahay dalka ma qaran baa u taliya mise urur diimeed baa u taliya? urur diimeed uma taliyo ee qaran baa u taliya. dowladdan ma aha dowladdii ka horeysay iyo xasan sheekh ilaahay kheyr ha siiyo, waa nin sabar badan, dadaal badan, cid walbo gurigooda ugu tagaayay, u sabraayay, daysan saan ahayn saan ii samee haddii loo haye dhahaya. laakiin tanna way isku dayday inay waxaas camal samayso, laakiin way ka badbadiyeen. maadaama ay ka badbadiyeenna soo dowladda meesha ka taliso, dowladda inay samayso waayo wax walba oo awooddeeda ama karaankeeda ah. marka maanta culimmadii waxay sameeyeen wax lagu dayan karo, maadaama looga baahnaa markii hore inay tanaasulaadka sameeyaan, laakiin markay arrintu jeq ku noqotay ay meelay u baxaan waayeen, waxay dantu ku kaliftay inay isdhiibaan. taasna waa wax alle u sugnaatay, guushaasna waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed, qofna ma sheegan karo. ummaddii qabiil waa ka dhammaaday. qabiil wax la yidhaahdo dalku hadduu kama jiro. dadku xisbiyay u socdaan, doorasho cod iyo qof iyo cod bay galayaan, waa hadday suuro gasho, qasab maaha. balse waxaa loo baahan yahay in dowladdu iyo shacabka soomaaliyeed ay isqabsadaan, ammaankana lagu dadaalo. ahlu sunna haddii runta laga hadlo intaasoo qoosano way haysatay dhulka, wayna joogtay nidaam kala dambeyn wax walba, laakiin xarun caafimaadna may dhisin, iskuulaad waxbarashaana may samayn, ceelal biyaana may qodin. soo waxaa loo baahan yahay, waxaasoo dhan yaa looga baahan yahay, dowladda qarankaa looga baahan yahay. dowladda qarankaana qabanaysa. dowladdan ma aha dowladihii hore ee dalka soo maray. dowladihii hore qor isku dhiib bay ahayd, meel bay soo gaarsiiyeen, laakiin tan meel fiican bay gaarsiisay. tan kasii dambaysane meel fiican bay gaarsiin doontaa. laakiin ummadda soomaaliyeed qaarkood waxay ku murmaan ninkan madaxweynaha ah ee mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo u eeganaya bes qabiil hebel siduu aniga iigu talin karaa. war laandheera ahayd intaasoo sano, laandheera soo ma ahayn? maxaa dalka ka qabatay ma ii sheegi kartaa? ya hebelow laandheero waaye, aniga laangaabaan ahay, koo kale laan dhexdhexaad waaye, wax dhan isku keen. ya adoo laandheero ahay, anoo laangaab ah wax iga qaadi weyse. anoo laangaab ahayn adoo laandheero wax makaa qaadi karin. ya haddii anigu laandheero aan ahay, maxaan dalka wax ugu qaban waaye? maxaan dalka u dhisi waaye? maxaan dalka aan amnigiisa iyo kala dambeyntiisa u sugu waaye? taas waxay caddaynaysaa qabiil kaliya inuusan waxba tarayn. far kaliya fool ma dhaqdo. yaa dhahay soomaaliyaa tiri, laakiin aaway yaa ku camal falay. qadar yar oo xayeysiis ah waan iskugu soo noqon doonaa. shirkadda baastada Regina waxay macaamiisheeda ku sugan daafaha caalamka ay wargelinaysaa in loo keenay baastada Regina. macaamiisheeda ku sugan qaaradda Yurub waxay shirkaddu ugu keeni doontaa goobtooda shaqo ama fadhigooda lagu keeni doono. haddaba shirkadda waxaad kaloo ka heli kartaa saliidda noocyadeeda kala duwan ee ugu horeyso oliivada iyo buskudka noocyadiisa kala duwan. haddaba ha moogaanin shirkadda baastada Regina. shirkadda baastada Regina fadhigeeda ugu weyn waxa uu ku yaalaa dalka Talyaaniga, gaar ahaan caasimadda Roma. wixii faahfaahin ah kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran. ha moogaan
shirkadda baastada Regina. marka waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan. isku duubniya wax lagu qaban karaa. qabiilii waxaas waa u dhamaaday. hadda waxaa maqlaayaba ciidamadii Jubbaland ee ku sugnaa dhanka iyo Doobley ayaa qaarkood yiri anigu qaranka Soomaaliyeed baynu ka mid nahay ayagaanu isku dhiibaynaa. soo waxay ogaadeen inuusan qabiil wax tari doonin qaran oo wax taraayo. soo qaran la-aantiisuna wax hagaagaya ma laha. wariyaa Rwanda fiiri Rwanda. look at Rwanda. ya waxay soo teknolojiyada ku hormareen. hadda Afrika yaa gaaraba yaa gaaro hadda ugu badata South Africa. laakiin Rwanda smartphone la soo saaraya. adigan waxaad taagan tahay anoo oo langaab ama landheer ah soo hebel oo laan dhexdhexaad wax iga qaadi karaa. yaa anoo saanay soo hebel igu tali karaa. dowladnimadu waa heshiis. ya qabiilkuna waa garasho. يا أيها الذين آمنوا إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن محالة حجية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا في عنيها إن ليسكود عدعاء قبيل الله انتقد لأن يا رب ضمن أصحاب تيدا الصومالية وواحد جرو قبيل كمسكح ذاك الجري. لكن ويوجهين لو سن قبيل واحد بترين بدن كودوا يجرواقسين لكن وحيلين الله كعبسي يرجس كدعس ما الإسلام قالان إن أساس هذا هم لنا ما رجس كدعس الله كعبسي ما الإسلام قالان حلو بها هاي إن كفكرتان دنتينا قاسكة dalka aan joognaa rafaadan ku jirnaa barbaleeman ku jirnaa dalkii waa laga soo rooray inta la imaaday. we have nothing. shaqaan ku jirnaa shaqadeen wax ma taraysadee. soo waxaa loo baahan yahay ummadeena inay iskaashato wax la qabsado isku soo dhawaado aa loo baahan yahay. taasi ma samayn karnaa ha haddaan qabiilka maskaxda ka saarno haddaan qoloqolaysiga qof jeclaysiga waxyaalaha saaniyada ka saaro. qofka aad jeceshahay hadduusan wanaagsanayn jecelkaagu jecel jira ma aha. soo waa laga fiican yahay. heestan waxay ka hadlayso si fiican u dhuux. dowladdu waxay waqti ku bixisay heshiis iyo dulqaad. laakiin maxaa lagu sameeyay? warna lagu taagay. laakiin ayada awoodeeda isticmaashay. soo wajiiska fiiqidadkii maanta dhacday camal soo maaha. qarannimo oo wax tarta
وكدي بحسها وكجرعون عن وكحمان أعمل اسكفان يا هذا waxaan halkaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii yaraa ee caawa halkan uga hadlay ee ku saabsanaa arrimaha bulshada gaar ahaan deegaanka galmudug ee shaqaaqadii ka dhacday labadii beri ee lasoo dhaafay soo tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo waxaana idinka codsanayaa inaad channelka emras aad saartaan subscribe waxaa kaloo kusoo gudbisan kartaan barnaamijyada xayeysiiska aad u baahan tihiin waa lii xayeysiinayaa weliba kan ugu jaban ee maxaa la dhahaa uguna macquulsan ee lagu xayeysiiyo barnaamijyada hadda waxaa barnaamijyadeena la soo xiriiray dad badan oo doonaya in wax loo xayeysiiyo taasi inta uu channelkeenu furan yahay waxay ka mid tahay horumarka yarkaa aan gaarnay waxaana leeyahay tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu